فدرالك الصومال. السلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قدونك بارلمانك فدرالك الصومالية حلبان هذا شرفت له دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت سيدا أي قضياشي قدونك نوعها أي وتاريخيين وتلمامين ومالين آدي مهم هو تاريخ ذا عصب الصومالي ذا عصب ما أنت هنا قاضي wadadii maxaa saxda ee ku dhaqaaqday waxaan rabaa hadalkayga inaan ku bilaabo wax yar oo taariikhda laga hadlay hadda qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo caalamkuba waxa uu marqaati ka yahay Soomaaliya iyo Ethiopia shalay daris ma noqon muddo fog oo qarniyaala ay daris ahaayeen qarniyaashaas ay dariska ahaayeen in badan oo ka mid ah 600 sano 700 sano lagu qiyaasahay taariikh la yaqaano oo qoran ayaa ka dhaxaysay taariikhdaasi taariikh aad iyo aad u qurux badan ma ahayn taariikh dagaal iyo cunfi iyo colaad iyo burbur ku salaysan ayay ahayd taariikh jihaad waxa la yiraahdo iyo crusade waxa la yiraahdo oo saliibiyiinta iyo jihaadiyiintu ay ku dagaalamaan ayay ahayd taariikhdaas muddo dheer ay soo tixneed dagaaladii hadda dambe oo gudoomiyuhu uu ka hadlay oo inta badan Ethiopia nooga imaanayay laakiin marmarka qaarkood annaga naga imaanayay dabcan yaan soo marnay wadadaas iyo taariikhdaas waxay ku soo dhamaatay 1990kii markii dawladdii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre oo madaxda ka ahaay ay collapse garowday dawladdii Ethiopia oo Mengistu Haile Mariam oo madaxda ka ahayna ay collapse garowday labada dawladoodba ay burbureen taariikhdaas soo socotay ilaa qarnigii 15aad bilowgiisii iyo qarnigii 14aad meeshaas ku soo dhamaatay laba dawladood oo cusub ayaa Soomaaliya iyo Ethiopia ka hana qaaday jamhuuriyadda saddexaad ee maanta annaga aan madaxdeedii mas'uuliyiinteennii kan aan nahay ayaa Soomaaliya ka hana qaaday dadka Soomaaliyeed in badan oo kamid ah waxay isu sheegeen inaan loo noqonin taariikhdaas dhibka badan ee hore loo soo maray ee colaadda iyo burburka iyo dhibaatada labada dal ka soo jirtay dadka Soomaaliyeed si dhab ah ayay go'aankaas u gaareen in ay colaad ka jeestaan oo ay u jeestaan nabad iyo maxaan ku yiraahdaa daris wanaag iyo wada noolaanshiyo waa midaas mid aan ku keenay sloganka maanta aan haysano oo Soomaaliya heshiis ah duniduna heshiis la ah duniduna dariskeena ka bilaabata aan heshiis kala nahay nasiib darro in kasto oo dad badan oo Soomaaliyeed mar walba ay qabeen dalkan aan dariskana Ethiopia la yiraahdo colaadaas kama dhamaan yaa la qabay laakiin dad badan qabay waxyaabaha socda waxyaabo duruuftu keentay waaye colaad ma aha iska dhamaan doonaan aan dul qaadan Ethiopia xumaanteed iyo burburkeed iyo kala qaybsankeed kamaana shaqeyn annagoo waliba asbaabo badan oo ay dad badan jeclaalahaayeen inaan uga shaqeyno aan sheegi karno ama aan haysano loo soo istaagi karno maanta bishii January 1deedii 2024 waxa dhacay wax cusub waay waa curato maanta la joogo curato ku ah duruufta jirta laakiin aan curato ku ahayn taariikhdii hore ee aan soo marnay aan curato ku ahayn waay cid awood u leh dalka Soomaaliya cad kamida inay bixisaahay ma jirto awooyaasheena diiday aabayaasheena diiday hooyooyinkeena iyo ayeesheena diiday annaga intaan nooleyn hadda diidnay sinna suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta Soomaaliyada aan haysano oo aan waliba hoosta ka qabno in badan aan naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn laakiin haddana aan inaan horumarsano nabadayno maxaan ku yiraahdaa dadka ku nool iyo deegaanada wax aan qurxino aan ku ballanay maanta in ay cad kamida u baxaayis dadka Soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan xuduudda gudaheeda kuwa ku jira xuduudda banaankeeda kuwa joogaba
waan wada ognahay Soomaali qaanuunka caalamiga international law ma ogola waxa 1 January Addis Ababa ka dhacay qaanuunka caalamiga ay ka soo horjeedaan international law waxay ka soo horjeedaan international customary law xeerarka dhaqanka caalamka ka jira oo qawaaniinta marka laga yimaado hab dhaqanka caalamka ka jira ee dawladaha iyo ummadaha ay u dhaqmaan ka soo horjeedaan sina dhaqangal kuma noqon doono haddana dhaqangal kuma ah waxaa intaas dheer taariikhdeena ka mid ah walaalaha Soomaaliyeed ee waqooyiga Soomaaliya ku nool ama Somaliland dadka Soomaaliyeed ay ka tirsan laakiin taariikhya la kala leeyahay deegaan kasta taariikh uu leeyahay taariikh caam ay leeyihiin qarni hore aabayaashii iyo awoowayaashii dalka iyo deegaanka deganaa waxay diideen isticmaalkii caruurtiisu inay ku dhalato dalka heshiisyadii ay galeen waxa ka mid ahayd naag ajnabi ah oo isticmaalka gabdhahooda in aanay ku dhali karin dalka oo haddii ay dhalayaan ay baxaan ay dibadda ilmooda ku soo dhalaan si aanay dalkan xuquuq iyo sheegasho ugu yeelanin taariikh hore oo maqaar ku qoran weeye maanta haddii ay nool yihiin maxay dareemi lahaayeen maanta qarniga 21aad awoowayaashaas caruurtoodii qaar ka mida dalkii aan gobol ka mida bixinayna inay dhima laha nolosha inay hore ka dhima lahay wadnuu istaagi lahaa u malaynaya haddii ay noolaa lahaayeen daw ma aha taariikhdaas sharafta leh oo qiimaha badan ayaa waqooyiga Soomaaliya iyo dadka degan ay ka soo jeedaan welina waa aaminsanahay dadka waqooyiga Soomaaliya ku nool heybadaas iyo sharaftaas weli waa leeyihiin aan qabaa berigii Soomaaliya annagu taramkii hore aan madaxweyne ahay oo ayna haysatay arrintii badda ay taagneed ayaan ogahay dareenka iyo fariimaha ka imaanaya waqooyiga Soomaaliya sida ay ahaayeen ayagoo koonarka kale Soomaaliya biyo dhul ma ah dad ku nool yahay biyo jadda jiro oo badweynta Indiya kamida la isku haysto dareenkoodii aan ogahay biyihii kale dhinaca kale agtooda ahaa maanta waa la bixinayaa in la yiraahdo sina suurtagal uma ah waan hubaa in aanay ku faraxsaneen kuna farxi doonin aanay aqbali doonin waa hubaa waxaa intaas dheeran dadka fariinta kale uu rabo inuu farxo xitaa walaalayaal Ethiopia aqoonsi idin ma hayso aqoonsiyan idin siin haday tiraare aqoonsi jira ma aha